Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku dhashay Mecca. Nabiga sallallahu alayhi wasallam aabihii wuxuu dhintay asaga caloosha hooyadii ku jiro. Waxaa barbaaray hooyadiis. waxaa nuujisay Thuwaybatul Aslamiyya, haddana Xaliimatul Sacdiyya. markuu jiray 6 sano waxaa dhimatay nabiga hooyadiis. waxaan ka qaaday awoogiis Cabdulmutaalib. 8 sano markuu gaaray haddana waxaa dhintay awoogii. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku barbaaray Maka yaraantiisii. wuxuu raaci jiray ari. markuu gaaray 25 wuxuu guursaday Sayyidatu Khadiija, iyadana waxay jirtay 40 sano. markuu gaaray 35 wuxuu ka qayb galay dhismihii Kacbada. wuxuu aan ku noqday sifooyinka wanaagsan sida runta, ammaanka, sabarka, dulqaadka iyo xishoodka. markuu gaaray 40 sano wuxuu Allah u doortay inuu noqdo rasuulkii ugu dambeeyay una ugu jeclaa. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dadka Maka ku nool tawxiidka uga yeerahayay. 13 sano wuxuu u hijrooday Madiina. ayadana wuxuu ku noolaa 10 sano oo diinka islaamka faafinayay. waa u gutay xabiibka naga Muhammad sallallahu alayhi wasallam, amaanaga rabbigana ummada waa u seexayay. markay da'diisa ahayd 63 sano ilaahay ayaa oofsaday. nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhalay 7 caruur ah, 3 wiil iyo 4 gabdhood. 3 wiil waxay kala ahaayeen Qaasim, Cabdullaahi iyo Ibraahim. gabdhahana waxay kala ahaayeen Zaynab, Ruqayya, Kaltuum iyo Faatimo. wuxuuna ka dhintay 9 xaas: Caaisha, Xafsa, Sawda, Safiya, Maymuna, Ramlo, Hinda, Zaynab iyo Juwayriya. xabiibka naga Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa haddana yahay mid jecel ummadiisa. waxay waajib nagu inaan jeclaano xabiibka naga Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ana raacno wadadiisi si uu noogu shafeeco maalinta aakhiro oo dhan mid noqono jamaacadiisa. ilaahayow nagu ooso jacaylka rasuulka. aamiin. So now I will translate what I just said in Somali into English. So those of you who did not understand or want a better understanding, please listen. Prophet Muhammad, peace be upon him, was born in Mecca. The Prophet's father died while he was still in his mother's stomach. His mother took care of him after that. Then he breastfed from Thuwaybatul Aslamiyya and then from Halimatul Sa'diyya.